gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe ayaa galabta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa si ballaaran magaalada Burco ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo wafdigii uu hogaaminayay. intaasi kadib gudoomiyuhu waxa uu goob fagaaraha kala hadlay taageerayaashii soo dhaweeyay. Allahu akbar Allahu akbar Somaliland ha noolaato cadawgeedu ha dhaco ka gudaha iyo ka dibadda ha dhaceen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal waxaan aad iyo aad idinku faraxsanahay soo dhaweyntan aanan filayn maanta ay idin timaadeen baan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalayaal waana ma jira maaha imaka waqtigii maaha ololaha maaha waxaan u imi halkan inaan jaamacadda alfa oo berita qalinjabinaysa insha allahu tacaala inaan ka qayb galaan ugu imi baan filayn dee arrintan hadda ay soo dhaweyntan aanan filayna waa ku mahadsantihiin dee waxaa la yidhi Faysal Cali Waraabe markuu yaabo burcu ku soo ordaa baa la yidhi markuu yaabo burcu waxa weeye waa xareedii Soomaaliland ee burcu xareedii reer Soomaaliland weeye walaalayaal waan ku faanaa burcu waxa weeye halyeeyada Soomaaliland taariikhda galoodhani waa reer burcay ahaayeen wixii taariikhda galay 80 ama 90 walaalayaal waa halkii calankeena dib uga soo noqon way walaalayaal halkani waa halkii SNM ee kow ka bilowday halkankii dib u xareynta 27kii May 1988 walaalayaal waxaan maanta idinkala dardaarmayaa walaalayaal dalkeena maanta meel xub u maraya Ilaahay inuu inaga badbaadiyo horta aamiin subhanahu wa ta'ala Ilaahay nabadda aynu haysano iyo walaal rajada aynu haysano oo Soomaaliya dhan aan haysanayna ma jiiranayo walaalayaal iyo nabadda Ilaahayna siiyo Ilaahayna adkayo walaalayaal horta ogaada walaalayaal waxa weeye qabyaalad xun oo ka socota xagga madaxda ayay dalkii maraya walaalayaal qabyaaladu ha dhacdo walaalayaal wixii Soomaaliya kala saara ha dhaceen walaalayaal maalin weyto waxaan ka hadlay anaga isbahaysigu horta isbahaysigu ma isbahaysi qabiile waa asxaabba way waa laba xisbo mucaarada walaalayaal 2005 anaga kulmiye ayaa saas oo kale ugu heshiinay oo shirgudoonkii qabsanay walaalayaal marka walaalayaal qabyaladan uu madaxa naga qoray Muuse bixu leeyahay waa isku reer walaal waa beena waxaan nahay mucaarada waxaan ku abtirsanaa mucaarado dawladdan toosinaa waxa weeye doorashadii dhacday marigii dhaweeteen dul saarnay walaalayaal waxa todobada magaalo ugu waaweyn ee todobada laba meeyro qura ayay heleen magaalada kulmiye waa berbere iyo gabiile way walaalayaal labada markan sheegay أنا لبدا مقالوا لي ميردو دي مبريش بو سميسانيا ما قبيالات بان كو هذا ولا وحي باي بدلين واحد هاش ميش ما كورسطا دad قبيالات دون انا ما قبيالات باي تقانين waxa ay qabiil xaal si de qabiil waxba ka sheegay Muuse ka sheegay Muuse uu faanoy anagu no shan doolar isan labu leeyahay ma qabiil wax ka sheegay ma berbera wax ka sheegay waa horta dad siyaas dadka u xumaaday dadkeeni siyaas u xumaaday wadada xuna hadaynu marno Soomaaliland nabadda ku jirimayso waxa tii dhalinyarati mustaqbal ma u baahantii walaya miya biya leedisiya miya تعليم بلاش لا ينسيها ميا عافية بلاش لا ينسيها ميا الليل بلاش لا ينسيها انت واحد واجب دولتين انت وينو قبني وحين لكن هي سنين نبض وحين هي رجل كنا ولا رجل إلهي رجل قبل بابي سبحانه وتعالى مدحوينها أنا وحن لنا إلهي وحن كبرني سبحانه وتعالى إنه إلهي عقلك السعودية موسى إلهي سبحانه وتعالى موسى حل بعض صارني إن أنا بدل كاسي إن قصة هايم بين إلهي كبرني سبحانه وتعالى مركا واحد يسكت القاط ولا ريال دور الشهادين دل كان كدع ويدين مدحويدين كدع ويدو سومالي خطر بيجلسه سومالي خطر بيجلسه مين أقولنا
meen ogolaan in madaxweynuhu uu sharci noqdo uu isagu noqdo commissionkii noqdo uu noqdo magaalada maxkamadii noqdo uu noqdo guddiga dawaagelinta noqdo uu wax kastaba noqdo maynu ka aqbalnaa saddex noo tartami baan nahay miyaanu ka ogolaan in anaga noo yeedhiyo yaa saa yeela waanu siman nahay hanala soo ordaan leenaho calafkiisa ka qaado insha allahu tacaala doorasha inoo dhici doonta madaxweyne insha allahu tacaala waxaa ku xigaya ictiraafkeennii baa ku xigaya insha allahu tacaala waynu samirno samirkeenna wax ku helina walaalayaal qabyaaladda uu inaga ilaalay waa cudurka ugu weyne Soomaaliya waa qabyaalada aan uga baqaya qabyaaladda inaga ilaalay walaalayaal waa mahadsantiin deetana jaamacaddan ka hadlaya waa mahadsantiin ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqaha waddankeena ka dhigo ilaahay dad jecel ka dhigo ilaahay madax wanaagsan ka dhigo ilaahay subxaanahu qaar xumaanta iska dhaha oo wanaagga isfaray ilaahay naga yeelo maxamed midh qorsame